halkani waa McAllen magaalada ay ku nool yihiin dadka adduunka ugu burburan ama ugu cayilkatan qof walba magaaladan ku nool wuxuu dhigmaa laba qof oo caadi ah halka kuwa qaarna ay la dhiban yihiin miisaankan saayidka ah kaasoo markii dambe u keenay xanuuno heer waxay gaareen xitaa aysan socon karin waxayna khatar ugu jiraan in naftooda waayaan maalin kasta intii aan gaariga waday waxaan arkay makhaayado fara badan oo cunto laga cuno bal ila qiyaas 2 daqiiqo ama 10 daqiiqo markii aan socdaba waxaan arkayay makhaayad cunto laga cuno haddaba magaalada waxa ku nool dadka ugu cayilkasan adduunka kuwaasoo qaarkood aysan sariirtaba ka kici karin waxaana ka mid ah dadkaas ninkan markii u dambeysay ee la miisaamay uu noqday miisaankiisu 765 kg ugu daawade waa markii u dambeysay ee hadda ma ahan dadka ku nool McAllen waxay maalintii dalbadaan cunto degdega 3 jeer waliba cuntooyinka la shiilo kuwaasoo saliid fara badan leh iyo cabitaano wada cream ah haddaba waxay maalintii cunaan 3 jibaar inta uu jirku u baahan yahay cuntada aan hadda gacanta ku hayo waa 2215 kaloori ugu waa hal cunto oo kaliya waxaa la sheegay dadka halkan ku nool inay cabaan 100 litir oo kooka ah sanadkii halkay cabi lahaayeen biyo maadaama ay baahi fara badan u qabaan kookada shirkadda Coca-Cola ayaa xarumo fara badan ku leh magaaladan waxaan magaalada dhex socdaa ku dhawaad 20 daqiiqo mana aanan arag hal qof oo lugeynaya wadada ama ordaya ama baaskiil wata waa wax dhif iyo naadir ah inaad McAllen ku aragto qof lugeynaya haddaba waxaan booqanaynaa hadda mool si aan u soo wada aragno dadka magaalada ku nool wiilkii la socda wuxuu ii sheegay in moolka xitaa uu leeyahay meelo fara badan oo laga cuno cunto ama si guud makhaayado isla markii aan saa u soo galnay moolka waxaan aragnay mootooyin loogu talagalay dadka aanan rabin inay socdaan hadda waa xilli hore haddana already dad baa mootooyinka qaatay marka aad si fiican u fiirso dadkan waa kuwa meel waliba ka cayilan hadda meel walba oo jirka ka mid ah dadka halkan ku nool ayaa ah kuwa aayar socda ayagoo la dhibaatoonaya miisaankooda gabadhan ayaan weydiiyey maxay tahay sababta ka dambaysa in dadka magaaladan ay yihiin kuwada cayilsan waxayna sheegtay inay cunaan cunto aad u fara badan oo wanaagsan taasoo dufan fara badan leh haddaba saaxiibayaal McAllen waa magaalo yar oo ku taala gobolka Texas ee Mareykanka taasoo dakhligeeda hooseeyo waxayna u dhowdahay xuduudka Mexico magaaladan waxaa laga helayaa in ka badan 500 oo xarumood oo cunto laga cuno ayadoo dadka magaaladan ku nool ay gaarayaan ku dhawaad 150,000 oo qof waxay gaareen heer xitaa cunto dhaqameedkoodii ay u bedelaan cunto kaloori fara badan leh cuntooyin ay ka buuxaan cheese ayadoo badi cuntada la shiilo Brandon oo ah wiilkan waa khabiir ku takhasusay cuntada McAllen waxaan weydiiyey waa maxay dhibka ugu badan ay qabaan bukaanada magaalada wuxuuna ii sheegay in dhibka u badan ay tahay in tamar fara badan ay ku jirto cuntooyinkan ama kaloori aad u fara badan waxaa la sheegay in McAllen ay saamaysay maadaama ay xuduud la leedahay Mexico labadii dhaqan way isku milmeen dadkanina waa kuwa mar walba wax cuna sida uu Brandon sheegay waxaa jira dad halkan ku nool oo maalintii cuno ku dhawaad 10,000 oo kaloori marka laga soo tago caadooyinka dhaqameed ee magaaladan waxaa sidoo kale cayilka horseed u ah qaab dhismeedka magaaladan taasoo niyad jabinaysa dadka halkan ku nool haddaba magaaladan waxaa loogu talagalay in baabuur uun lagu socdo sababtoo ah haddii aad tirahdid ulugee oo tag meeshii aad rabtay waxay qaadan 2 saac halka gaarigu kuu geynayo 20 daqiiqo dadkaanina waa kuwa maalintii sameeya jimicsi aad u yar oo xitaa qaata ka yar 20 daqiiqo halkay cunaan cunto aad u fara badan wiilkan ayaan weydiiyey maalintii inta uu socdo wuxuuna sheegay inuu socdo ku dhawaad 1 mayl oo kaliya hal gameel waa 2,000 oo talaabo halka qofka caadiga loogu talagalay inuu socdo 10,000 oo talaabo laakiin halkan yoolkaas 10,000 ee talaabo waa mid aad ugu adag dadka magaaladan degan sidoo kale waxyaalaha keena dadka inay jimicsi sameyn waayaan waxaa ka mid ah kuleylka magaalada ka jiro oo gaadha marmar 32 digrii maadaama ay tahay magaaladan magaalo cunto waxaad ku arkaysaa meelo fara badan oo lagu xayisiinayo cuntooyin intaa waxaa dheer in makhaayadaha qaar ay sheegeen waqti cayiman oo carruurtu ay bilaash ku cunayaan cuntada saaxiibayaal waxaa la sheegaa Mareykanka in 10kii carruurba ay 4 ka mid cayilan yihiin kuwaasoo markay gaaraan da'da 35 ay dhaafaan xadkii miisaanka caafimaadku ku jiray arrintaana waxaa sababa in unugyada dufanka leh ee sameysma xilliga carruurnimada ay yihiin kuwa joogto ah oo xitaa haddii ay lumiyaan miisaan unugyadan ma aha kuwa shaqada joojiya waxayna bilaabaa inay maskaxda u diraan calaamad gaajo muujinaysa taasoo ku dhiirigelisa inay wax cunaan tusaalena waxaa kuugu filan sida ninkan hadda ku dhow 1,000 kiilo markii uu jiray 11 sano miisaankiisu wuxuu dhannaa 260 kg haddaba saaxiibayaal si aan u fahanno sababta ka dambaysa dadka inay saan oo dhan u cayilaan waxaan isku dayaynaa inaan tijaabino isla cuntaday cunaan dadkan balkaali la fiiri hadda waxaa gacanta ku hayaa qaxwadan ama kafeegan kaasoo laga helayo tamar dhan 390 kaloori inkastoo macaan fara badan uu ku jiray haddana dadka halkan degan uma arkaan macmacaan ee kaliya waxu arkaan kafee
sidoo kale ma ahan kii ugu weynaa ee waa mid ka mid ah kuwa ugu yar waqti xaadirkan waa 9:00 subaxnimo waana waqtigii quraacda dadka halkan taaganna waxay saf ugu jiraan quraac anigana waxay soo gaaraya urka subaga waxaan garan weynay cunto aan doorano taas la ajligeed waxaan u yeernay gabar ka shaqeysa meesha si aan u weydiino cuntada ugu badan ay cunaan dadka halkan jooga subaxii sida ay gabadhu sheegtay waxa aad loo jecel yahay bankeegan subaga leh sidoo kale shuklaatadu ay la socoto haddaba saaxiibayaal si guud ku dhawaad cuntadan waxaa ku jirta 1,000 ilaa 1,200 oo kaloori inta u dhaxaysa haddaba markii aan quraacnay kadib waxaan aragnay in meeshan xitaa laga helayo macmacaan oo dadka makaalan ku nool markay quraacdaan waxay gataan macmacaan sida biskud wada sonkor ah oo sonkor xadka baxa ay ku jirto iyo macmacaano kala duwan oo isla eegi doono meesha waxaad ka helaysaa biskud aad u fara badan nooc waliba oo u baahan tahay waxaana la sheegaa in biskudkan halkii xabba laga helayo 500 oo kaloori waxaa la sheegaa haddii hal qof uu cuno 3 xabbo biskudkan ka mid ah inuu helayo 1,500 oo kaloori ama tamar taasoo ka dhigan 4 cisho tamartii uu ku shaqayn lahaa inuu helay haddaba biskudkan waxaa ka buuxda sonkor aad u fara badan taasoo aanan jirka u roonayn haddana waxaan isla fiirinaynaa cabitaanka ama kafeega u badan ee cabaan dadka magaalada degan waana kafeegan waxyaalo fara badan ayuu ka kooban yahay sida ay gabadhu sheegtay biskud ice cream iyo waxyaalo kale oo aad u fara badan cabitaankana tamarta laga helayo waxay gaaraysaa 920 kaloori inkastoo cabitaanadan ayna keenin miisaan koror degdega laakiin badanaa waxay keenaan dufan qarsoon wuxuuna ku wareegsan yahay xubnaha muhiimka ah ee jirka taasoo keeni karta cudurro dilaa ah maadaama aan saaka cunay sonkor fara badan isla markiiba waxaan bilaabay inaan gaajoodo saasay tahay anagoo wadada socono ayaan cunto dalbanay haddaba daawade bal ila qiyaas 4 daqiiqo oo keliya cuntadiina loogu keenay cuntadana tamarta laga helay waxay gaaraysaa 2,250 kaloori haddana waxaan aadaynaa supermarketyada iyo waxyaalaha lagu gado markaan supermarketka soo galay waxa ugu badan aragna wuxuu ahaa chibista shiilan waxaa la ii sheegay dadka magaalada degan inay aad u cunaan chibistan keliya maalintii hadduu qofku cuno bishii waxa uu helayaa ku dhawaad 33,000 oo kaloori maalin kasta dadka halkan ku nool waxay cunaan cuntooyin fara badan oo leh tamar aad u fara badan kuwaasoo wax nafaqo ah aan lahayn supermarketkan waxaad ku arkaysaa cabitaano kala duwan oo uu ka mid yahay Coca-Cola aad u isticmaalaan sonkor fara badan ayay leedahay inkastoo meeshan aad ka helaysid fruit haddana saasay tahay fruitku waa mid qaaliya maadaama faa'iidadiisu ay badan tahay taas cagsigeeda cuntooyinka kale faadka faraha badan laga helayo waa kuwa raqiisa marka la joogo magaaladan haddaba halkan uga wac saaxiibkaaga caatada ah haddii uu jiro qof dhuuban oo uu tago magaaladan oo cuno waxay cunaan dadkani waxaa la hubaa ku dhawaad 20 kiilo inuu ku beeriso bisha u horeysaba haddaba waxaan la joogaa wiil youtuber ah waxaana ka dalbanayaa inuu ii sameeyo cuntada ay cunaan dadka reer Mareykan isla markiiba waxaa la yaabay cabitaanka uu ii siidayo iyo waxyaalaha faraha badan uu ku darayo kuwaasoo tabar aad u fara badan laga helayo oo ay ka mid yihiin biskud iyo sidoo kale caanahan oo halkii qaado laga helayo 50 kaloori taasoo 10kii qaado ay la mid tahay 500 oo kaloori cabitaankan uu ii siidayna ku dhawaad waxaa laga helayaa tamar gaaraysa 2,250 kaloori sidoo kale meeshan waxaan ka maqnayn cuntooyin kale oo ay ka mid yihiin chickenka la shiilay iyo cuntooyinkan cheese lagu darayo waxaan isku dayayaa inaan tijaabiyo cuntadan si guud waxaa laga helayaa tamar gaaraysa 7,000 oo kaloori cuntadan waxay leedahay carbohydrate aad uga badan inta uu qof cuni karo sidoo kale wiilka waxaan weydiiyey cabitaankan yar gacanta ku hayo inta gram ee sonkor ku jirta wuxuuna ii sheegay in ku dhawaad 110 gram oo sonkor laga helayo cabitaanka yar gacanta ku hayo markaad cuntada cunaysid waad ku raaxaysanaysaa laakiin gadaal ayaad ka qoomin doontaa waxaan u maleynayaa inaan si awoodi doonin inaan soo cuno sababtoo ah inta yar ayaa ku dhargay haddaba saaxiibayaal hadda waxaan booqanaynaa nin miisaankiisu ku dhow yahay ku dhawaad 700 oo kiilo ninkan ayaa waxaa la sheegay inuusan sariirtiisaba ka soo kici karin kadib markii uu miisaankiisu xad ka dhaafay sidoo kale saaxiibayaal ninkan xitaa waxaa dhiba naqaska ayaa dhiba sidoo kale ninkan wuxuu la halgamayaa cudurro halis gelin kara noloshiisa xitaa haddii cuntada iska daayo jirkiisu wuxuu u baahanayaa cunto sidoo kale wuxuu sheegay in hadda uu cuno cuntadii cuni jiray laba jibaarkeed sidaas la mid daawooyinkan 2 jeer ninkan maalintii wuxuu cunaa cunto tamar laga helayo ay gaarayso 10,000 oo kaloori sidoo kale wuxuu cuni jiray markii hore 3 burger ah iyo sidoo kale cuntooyinka McDonald's lagu gado iyo sidoo kale biskud iyo chips aad fara badan haddaba waxaan weydiiyey markaas waxaasoo cuntada aad cunto miyaadan dhergi jirin wuxuuna sheegay inuu asagu dhergi jiray laakiinse maskaxdiisa ayaa ku qasbi jirtay inuu cunto kale fara badan sii cuno
sidoo kale waxaa la sheegay in ninkan 9 sano uusan sariirta ka kicin sidoo kale asagoo isla sariirta jiifa sanadkii u dambeysay waxaa ku biirtay 90 kg waa isla sariirta sidoo kale waxaan weydiiyey marka aad subaxisa u soo kaco muxuu noqon karaa waxa u horeeya ka fikirtid wuxuu sheegay waxaan ka fikiraa maxaan cuni lahaa maanta dhakhtar miyaa balan leeyahay iyo waxyaalo noocaas ah haddaba ninkan daawooyinkan uu tusay wuxuu ku qasban yahay inuu maalin kasta qaato haddaba saaxiibayaal waxaan weydiiyey ninkan muxuu yahay shay ka maqan wuxuuna sheegay shaygaas inuu yahay ama shayga ugu muhiimsan ee ka maqan inay tahay xorriyadda haddaba daawade adi maxay kula tahay ninkan maxaa xorriyadda ka qaaday dabcan waa cayilnaantaas wuxuuna sheegay xorriyaddu inay tahay waxa ugu quruxda badan dunidan haddii aadan xornimo haysanna noloshu ma noqon doonto mid u qalanta in lagu noolaado waa sida uu sheegay ninkan 700 kg ah haddaba saaxiibayaal si guud intii aan ku sugnaa magaalada Makaalen waxaan cunay ku dhawaad 9,000 oo kaloori cunto leh haddii sidan muddo bil ah aan ku wado oo aanan maalina ka tagin waxay ugu beeri miisaandan 19 kg muuqaalkeeni magaalada Makaalenna intaan uu ku yahay saaxiibayaal saaxiib haddii aad nagu cusub tahay sidii caadada heelowna nagu soo biirto sidoo kale inaad muuqaalka like saarto waa anigoo saaxiibkeena Khalid intaan muuqaalkan iyo muuqaal lamida ku kulmayno nabadgelyo